قرحمو libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn kula wanaagsan saaxiibayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga toddobaadkii barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta xuquuqda hooyada ee shareecada islaamka mowduucan wuxuu diiradda saarayaa in la fahmo waa maxay xuquuqda hooyada adilada sharciga ah ee dhowrista xuquuqda hooyada sidee ayay u dhowrtay shareecada islaamka xaqa hooyada maxaa dhici kara haddii la dhowri waayo xuquuqda hooyada martida barnaamijkuna waa sharciyaqaanad Faaduma Ayaan Axmed Cabdullaahi ku soo biir wada hadalka kuna soo dir aragti iyo su'aalo wixii kaaga baxa nambarada idaacadda oo kala ah eber 6 9 62 eber 3 ama eber 6 9 62 eber 4 tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo horumarin u ah bulshada iyo bahda dhiganaysa cilmiga sharciga qaanuunka waxaan nagala qayb galaya asxaabta kala ah Cabdi Fataax Cabdi Aadan Saalax Xasan Xuseen Maryan Maxamed Xirsi iyo Aamina Maxamed Cabdi mar kale ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda dib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray ma jeclaan lahayd in laga caawiyo ama laga taliyo haddii ay jawaabtu tahay haa fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho hagaag barnaamijkeena waxaan ku lafagureynaa ilaalinta xuquuqda hooyada ee shareecada islaamka waxaana sharaxaad buuxa inaga siin doonta sharciyaqaanad Faaduma Ayaan Axmed Cabdullaahi waxaan jecelahay marka hore inaan soo dhaweeyo marka xigtana ay inooga waranto xuquuqda hooyada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin amma ba'd dhamaan bahad raadiyo milo iyo dhageystayaasha sidoo kale kasoo qayb galayaasha barnaamijka waxaa ku salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib runtii xuquuqda hooyada markii aan tilmaameen wax ma ahan wax lagu tilmaamo macna wax aan soo koobi karno ama maanta dhan hadaa sheegna aan mid kamid xataa aan gudan karno shareecada islaamka si guud haweenka waxay gaarsiisay boos sare ama maqaam sare ay gaarsiisay oo waxay siisay dhamaan xuquuqda ragga iyo in ka badan oo daryeel iyo daneynba gaar ahaan waxay sare u qaaday hooyada ma jirto diin ama nidaam jiray oo dawladeed oo hooyada siiyay xuquuq ka badan xuquuqda uu siiyay shareecada islaamka ilaa heer ay gaarsiisay in jannada ay tahay lugaha hooyada marka fiirino hooyo ereyga hooyo Soomaali ahaan maxaa waaye hooyo waa hooy laga hergalo wax walba oo dhibaato ah oo laga helaayo dugsi iyo dirimaad waxa ognahay hooyada yani inay nafteeda ka hormarinayso ilmaheeda dhinac kasta si kala hada u dhignana yani hooyo ereyga hooyo waxa waa hooy u hooyata caloosheeda waa hooyada sababta marka ugu horeyso oo bini'aadanimadaada ay jireyso meesha ugu horeyso aad ku abuurmayso ama aad galayso waxa waa caloosha hooyada marka saas daraaddeed ay ereyga Soomaaliga ah ee hooyo waxa looga dhigay inay tahay hooy u hooyanaysid hooyada marka fiirino xuquuqda hooyada yani xuquuqda hooyada ma ahan wax oo la koobi karo ilaahay heer wuxuu gaarsiiyay cibaadaadka kadib uu ku xiro baarnimada waalidka gaar ahaan hooyada ilaahay wuxuu dhahay wa'budullaaha wa laa tushriku bihi shay'an wa bil waalidayni ihsaanan ilaahay caabuda waxna la wadaajinin yani cibaadadaadka dhan kadib waxa ku xiga waxa waaye wa bil waalidayni ihsaan luqada carabiga ba'da bisuhba ay sheegaysaa macnaha saaxiibtinimo iyo u dhawaansho iyo baarinimo sameynta waalidka ilaahay markuu intaas dhahay yani wuxuu ku daray ووصينا الإنسان بوالديه إحسان حملت أمه وهن على وهن markuu ilaahay juzka qaybta koowaad wasayna insaan yani waalidku waxa la dardaa in bini'aadamku waxa la dardaan in waalidkiis uu ihsaan u sameeyo si caam ay u sheegay qaybta laakiin si gaar ah hadana wuxuu baarinimo siisay hooyada
xamalatu ummu wahan calaa wahan dhibaato ay ku xambaartay dhibaato ay ku dhashay waxaa dareemi karnaa hooyada markay ilmaha caloosheeda galaan dhibaatada ay marayso ilaahay wuxuu kugu abuuray qalbi aanan aqoonin xaasinimo qalbi aanan aqoonin jacayl maslaxad ah wax kastoo jacayl oo dunida soo maro maslaxad waa xaaladna uu leeyahay uu dhammaan karaa marka laga reebo jacaylka hooyada oo ah mid aan maslaxad gaar aysan kaaga xirneen waqti gaar ay ku jeceshahay aysan jirin noloshaada oo dhan ilaa inay iyada ka hor dhimato ama dhimato godka gashamaana aad tahay qof qalbigeeda ku jiro ilaahay wuxuu kugu abuuray qalbi yaqaan naxariis qalbi yaqaan dulqaad qalbi aan marnaba xaqdi iyo dhibaato iyo habaar iyo cuqdad aan garanayn oo nadiif ah ilaahay wuxuu ku tilmaamay quraanka waxa arkaynaa gabar lagu tilmaamay quraanka manzilada hooyanimada darteed nabi ma aysan ahayn maryam bint imraan hooyadeed nabi ma aysan ahayn rasuul la dir ma ahayn laakiin manzilada hooyanimada darteed ayuu quraanka u xusay yani ina hooyo lagu xuso si gaar ah quraanka macantaas waxayna cadeynaysaa ama tusaysaa inay tahay darajo iyo iyo heer weyn oo la gaarsiiyay hooyada waa qofka kaliya noloshaada أنا تضحية سمين كر تضحية ده وحين نقول كرت إن قفك ومال نقول تضحية نفن نقول تضحية وحاول قفك كلية النفط هذا التضحية إن هذه جنولات أجرته وحلقية هو يضع هو يمكن هو روح أركن إني أفصمالي حتى ما قعد يسقر كرين لكن سي هذه أنه قد قف نلش شيء كافية أو كفلا أو هرمر جالسين كره وحي تبغى تكست أو نفر يحنون يوحول بقون يعني نفته قتل وجرين كر أمرته جريتان كذا هذه سيدا وجري لهت سيدا نلش ونقول قف واحد خبص هذا مركز نلش حقوق ذا مركز هو هذا إلى ذا ومركز سكالات ما مكان وحقوقه رأيه نمبرون هرت إن إحسان لو سمع إحسان محل إحسان كوالدك وحالها جاران وهذا وإنا أسميس وح كست وناج والسلة يقانو كناك إلى رس وح والبودبات أو يكهرس بربلمات كدبات هذا نولش هذه كايست بارنمد كلمة إنا والدك هذه وناج أسميس وحقيبك إن هذا والدك هو يدا أنا كل عرن مركز دبات هذا كويس سوته ويكون الشبير كذا تهاي ويدبس وحي هذه كل يكون قنيس عقبات محيالي ويدبس حتى هذا قفوين واللي حنجر أتاي وح والبودبات هذه كويس أيضا ويدبس دبي كتا سيادن مركز دبات هذا صغير على سنمبرون وحاء والد هو يدا إن الله صاحبته إنا هتقف قدو إحسان وسمي معنا وناقو wax kasta oo wanaag hooyada loo sameeyo waxa kulmisanahay ereyga al-ihsaan kulmisanahay ina ihsaankaas u sameeyay talabaad waxa hooyada ina siiso xuquuqdeeda waxa kamid ah ee xaq u leedahay inay daryeel iyo jacayl maxaa yeelay adigoo waxba ahayn daciif ah candhuuf laga abuuray ayaad caloosheeda waxaad ka heshay dugsi iyo diirimaad waxay ka tagtay hurdadii iyo raaxadii waxay ku martay xanuun iyo dhibaato badan marka dhalatayna adduunyada waxa ku haysay macna ilaahay wuxuu dhahay macna wasayn insaan biwaalidayhi ihsaan hamalat ummukum yani ufsalu aamayn 30 shahra macna ayda waxay tilmaamaysaa in 2 sano ay ku nuujisay calooshan ay kugu siday marka dhibaatadaas dhan ay kugu samaysay daryeelka ay ku siisay ay dugsi ku ahayd adigana waxa laga rabaa maanta marka noqoto qof wax qabsan karo inaad daryeel siiso jaceelna siiso talabaadna waxa in saddexaadna waxa in adeecdo xuquuqda leedahay ay kamid tahay in ku adeecdo wax walba oo aan ka horimaaneen ilaahay macna shariicadan ka horimaaneen wax walba aanan ahayn in diinta aysan diidaneen in ku adeecdo xataa hadii adiga naftaada dhibaato ku tahay waa in ku adeecdaa oo yada baari ugu noqotaa oo aad u dhaganuglaata oo aad u ahaataa qof u taagan mar walba raaligelinteeda iyo adeecideeda oo aad macnaha aasiisa u taagan tahay sida u gudan leed adeecitaankeeda ta kale waxa waaye in loo dhimriyo in loo dhimrinta maxaa macnaha waxa waaye inaad ka ilaaliso wax walba oo ayada dhibaayo sidii ayada kaaga ilaaliso markaa yareed oo daciifka ah say kaaga ilaaliso waa inaad uga ilaalisaa wax walba oo dhibaayo oo dhimrin iyo naxariis iyo nuglaanshaha u sameeysaa ixtiraamkana waa inaad dejisaa booskeeda booska ugu macnaha mudanta oo hooyanimada ah macnaha dhimrinta waxa arkaynaa xadiiska nabiga waxa sallallahu alayhi wasallam aljanna tahta aqdam al-ummahat jannada waxa la geeyay hooyooyinka lugahood macnaha hooyada lugteeda waxa lagu geeyay adiga waxa ka hooseysa lugteeda ma jirto boos kale oo lagu dhigi karo oo hooyada lagu dhigi karo wajigeeda ayaa istaagta ayaa la doodi kartaa ama hadal xun dhigi kartaa wala taqullu ma uffin wala tanharuma hadal uff ama xunna dhihin ha guulguulin ha canaananin hooyo waa qaldantahay ha dhihin xaq uma lahan ma mudno in la dhaho in hooyo wada qaldana ku socotaa isaana tahay ilma mudno
waxaa jira qiso la wariyay xasan bin cali bin xasan bin cali bin abi daalib wiil u dhalay ayaa la weydiiyey waxaa la hooyada marka cuntada u diyaarsa maxaad ula cunin oo saxanka ku cunaysa maxaad ula cunin waa taa hooyada baaroeeda wuxuu dhahay waxaa ka baqaa gacanteeda marka gilis inay gacanteeda ka hormarto macnaa si aysan gacanteeda ka hormarin waa ina marka aad sugaa intay hooyada cuntada ka cunaysa martaas waxay tusinaysaa sida qofka bini aadanka in oo macnaa isku nugleeyo oo isku dhul dhiga oo lugaheeda ay ku taagan tahay hoosteeda inaad tahay maadaama aad tahay qofkii nolosheeda ayada la'aanteed aadan jiri lahayn waxaa arkaysaa oo kale hadda ilmaha markay dhashaan oo xamligii iyo dhibaatadii la maro aabaha waxaa laga yaabaa habeenkii inuu iska hurdo laakiin ayada waxay ka tagaysaa dhammaan wixii oo raaxa ah si adiga kugu dhimriso si adiga dugsiin ku siiso saas darteed waxaa aragtay hooyooyinka حتى لقدها الماء عنق لقدها وهنت ويجرنيسا أو واحد دريمسا مركو أويو عنق وحلada وباهي هاي وهنت حنونة هاي وهنت نحاواي معنى تاسو حاواي درين كو أبورن أو هو ينما أو إلهي معنى وجوه حيوي وحأركينا قرآنك نبي موسى يديس الله مركو رب إنه صار هو جامية أما ونكسن أما النبي أما رسول حق عند أجليه هويو waxaad su'aalna u filnaa maxamed nabi muuse nabi ciise allah marna ma sheegin nabi muuse aabiis marna quraanka kuma sheegin waxa arkaynaa markii oo fircoon uu muuse soo helay ilaahay wuxuu dhaw oo xeena ila ummi muuse macna ilaahay ma dhihin waxa uu waxyo nabi muuse aabiis nabi muuse walaashiis nabi muuse adeeradiis oo tolkiis ma dhihin laakiin waa xeena ila ummi muuse waxa uu waxyo nabi muuse hooyadiis sababta loogu waxyeen waxa la baraay sida cunugan يعني ودريال لهاد أيضا موجهين إني رش هذه كله حقنا فرعون إنه ويلش وكسر أدنى موس حل وقلاي مركز درتت أيضا يا إله وحيود وحين على أم موسى أن أرضعيه إنه نوجس فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذه أكعب ستن وبيك كتور معناها هو إن الله فلدت كبدها بيرك وبيك كتور معناها مرحلة أذقواي إيمانك يسود إله وصقواي مركز وحين إلى أم موسى إلهي هوينك وحي أما إلهام وسي إني جرت الدرينك المهذا سي أي وجود دمر تاس درت أديك محلقة راه مركب ما أنت وينك هنا دمرين يسكبوا اللي جت ينحرس أو موجست هويد وحكى لو كميد إلا عاوي هويد wax kasta oo garab ah oo lagu garab istaagi karo hadii aan leeyahay culisaadka nolosha hadii aan leeyahay nafaqadeeda hadii aan leeyahay wax walba ayada caafimaadkeeda iyo daryeelkeeda ku helay in loo garab istaago oo laga caawiyo nolosha yani waajib ma ahan ama wax oo suurtagal oo aqliyad aqbali karta maahan waqtigeena hadda gabdhaha arkeeno ah ayagoo subaxda jiifa gabdha dhalinyaro caafimaad qaba gabar iyo wiilba in hooyada inta soo kacda hadana iyagoo quraacda u diyaarinayso macnaha waxa waaye wax iska dhaaf diinta macnaha insaanimada xataa damiirka ay dib ku tahay markaas darteed waa inaad garab istaagtaa wax walba oo muujinayo baarinimada iyo sida hooyada u gudan leed xaqeeda sidoo kale in xaaladeeda laga warqabo xaaladeeda ka warqabkeeda diinta xataa way noo tilmaamtay oo xadiis waxa jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wiil dhalinyaro oo maado xurub inuu jihaadka u raaco wuxuu ku dhahay hooyada ma nooshahay ha u dhahay fa fiiha falzam u dhahay jannada lugeeda hoosteeda waa ayada u laaba fiiha fajaahid macna ayada nolosheeda iyo waxay rabto kula jihaatan oo ayada baari u noqo oo la jirkeeda iyo helkeeda iyada hooyada u joog waxa kale oo jira qiso la wariyay oo Ali bin Abi Talib nina u imaaday wuxuu dhahay gabar ayaan jeclaaday ninaas gabadhi marka doontay way idiiday nin kale soo doontay ninkii way aqbashay ninkii waa dil u dhaani maseer iyo xanaaqda ay qaad waa dil maxaa ilaahay ugu tooba keenaa wuxuu dhahay hooyada ma nooshahay mayo dhahay marka wuxuu dhahay wax kasta oo amal wanaagsan ah oo ilaahay dambigan kugu dhaafi kara samee ninkii uu aqbalo ka tagay markuu ka tagay dadkii la jooga weydiin waxay dhahan maxaa u weydiis in hooyadiis joogo wuxuu dhahay dambiga uu galay weynkiisa kaliya waxa lagu dhaafi karaa in hooyadiis uu iltizaam yani uu laazimo oo suxbadeeda iyo nolosheeda iyo daryeelkeeda iyo inuu gud xuquuqda kaliya ayaa ka gudi kara nafta u dil marka taas waxay tusinaysaa xuquuqda iyo sida u badan yani weyn tahay iyo booska u gaarsiin shariicada islaamka waxa nooga sheeg adilada sharciga ah ee dhowrista xuquuqda hooyada islaamka wuxuu dardaan horta in waalidka loo baarinimo sameeyo labada dhinacba labada aabaha iyo hooyada si guud laakiin wuxuu sii xoojiyay hooyadu sii xoojiyay oo wasayna al-insaana biwaalidayhi waxa la dardaaranay حملت أمه وهنا على وهن
macnaha dhibaato inay ku xambaartay si gaar ah waalidkii waa la tilmaamay haddana waxa la hooyadii taasna waxa waa macnaha darajada iyo hooyanimada sidii ugu weyn tahay shareecada islaamka ilaahay haddana wuxuu ku xiray aayadii hore ku celinayna wuxuu ku xiray cibaadadu ku xiray anishkur li wa liwalidayk anishkur li wa liwalidayk ilaahay dhahay macnaha rabada alxamd wa shukra ala ni'am illah minha al-umma kamid waalidka gaaraan hooyada macnaha nimcada ilaahay iyo shukrigiisa jiritaankaada sidoo ku abuuray nolosha ku siiyay sidoo ku ilaaliyo caafimaadka ku siiyay waxa uu ku shukrisaa aniga iyo waalidka ugu shukri macnaha wuxuu ku xiran nimcooyinka waxa kamid ah inaad leedahay waalid sabab u tahay noloshooda ina imaatay adduunyada gaar ahaan hooyada oo waxa la yahay aabaha macnaha isaga ilmaha mar uu dhalay hooyada waxa waay jiritaankeeda macnaha hadii ayada jirin ilmahaas ma abuur mileen marka saas daraadii xataa waxa arkaynaa meelaha qaar hadii aabaha uu dayaco takaaliifta iyo waajibaadka ka saaran caruurta la heli karo qofka booskaas qof buuxin kara ama hooyada u buuxiso ama walaalaha u buux laakiin booskaas waa la buuxin karaa markasta laakiin booska aan la buuxin karin oo xataa hooyada hadii negligence ama dayacaad ihmaal ay samayso oo ilmaha xataa noloshooda ilaahay ma qadaray qatar ku tahay inay dhintaan saas darteed marka ilaahay wuxuu sii weynaysay isku xiray cibaadada iyo ibaarinimada waalidka gaar ahaan hooyada nabiga sallallahu alayhi wasallam nina uu maaday wuxuu dhahay yaa rasuulullah man xaqu bi husni saxaabati macnaha ay saaxiibtinimada iyo nolosha ina qof ilaaliyo dadka iyagu xaqnimo badan nabiga wuxuu dhahay hooyada thumma man qala ummuk hadana thumma man ummuk thumma saddex darajo markuu hooyada siiyo wuxuu dhahay thumma man markii afraad markaas dhahay qala abuuk macnaha darajada afraad aabaha la geeyay taasna waxa weyninka iyo shareecada islaamka meesha ay gaarsiiso hooyada nabiga sallallahu alayhi wasallam maka waxayna xajka wuxuu ku arkay nin hooyis inta dusha saartay xariiq isku xiray ku dawaafay kacbada dhexdeeda markaas nabiga weydiiyay alhadeeyta xaqaa u dhahay xaqeeda ma gutay u dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay la walaw bi zafratin min waahida macna ma gudanin hatta hal mar oo guntiga isaan ku wada oo ka dhici rabtay naxtinta naxdi hatta maadan gud macna iska dhaaf ina xaqeeda inaad gudatay maadan gudanin xaqeedii hooyada markaas waxay tusinaysaa islaamka iyo macnaha shareecada islaamka ama quraanka weynida iyo manzilada iyo macna boos gaarsiin taasina waxay ku mutaysatay inuu gaarsiiyo sabarkeeda dulqaadkeeda dhimrinteeda naxariisteeda iyo wixii ka soo martay oo dhibaato caruurteeda oo ay nafteeda ka hormarisay naftiisa waxa kale oo jira waxyaabaha kale shareecada ka hadasha kamid ah xataa waalidka ayagoo gaalo ah ina baar u noqon kartid oo ihsaan sameyn kartid waxa jira asmaa bint abubakar sidiiq waxa uu imaatay hooyadeed oo gaalo ah waxay ku dhahday nabiga uu maatay yaa rasuulullah hooyadeed oo gaalo ay imaatay afaasiluha ma xiriiriya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay xiriiri xataa walaw kaan mushrika oo xaqeedu gudo marka gaalnimada marka gaalo yihiin waxa la rabaa in jahadaka ala an tushrika li ma laysa laka bihi ilm fala tasahibhuma wala tudihuma wa sahibhuma fi dunya ma'ruf fala haku adeecin gaalnimadooda laakiin kula saaxiib adduunyada macruuf oo sameey oo ku adeec xuquuqda noloshaada jira marka hooyada haday gaal tahay iyo haday muslimta iyo haday caasiyad tahay haday faasiqata manzilo laga tagay xuquuqdeeda hooyanimo shareecada ay ka tagtay ma jirto waxa jira xadiis kale oo Abu Hurayra guriga imaado hooyadiis oo wuxuu imaaday hooyisoo imaaday nabiga aflagaadey sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra arinta uu leeyahay aad masaajidku imaado iska ooyay asoo ina nabiga arko wuxuu dhahay maxaa ku dhacay wuxuu dhahay rasuulullah hooyade waa mushrikad saasayna ku dhahday nabiga ilaahay ugu duceey inuu soo hanuuni nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wuxuu ahaa qof naxariis badan oo jeclaa ummadiisa inay janno galaan inay muslimiin noqdaan ma dhihin macna ilaahay way yaaysaas ay dhahday saas cadaab saas laakiin uu dhimri uu duceey gacmo sar u taag wuxuu dhahay ilaaho abi hurayra hooyadiis hanuuni bas Abu Hurayra uu baxay guriga u laabtay guriga markuu tagay wuxuu maqlay qarracda biyaha oo guriga dhaxaysa lagu qabeysana waxay dhahday Abu Hurayra soo galin guriga isug uu suga wuxuu u galay hooyadiis oo shahaadanayso oo islaamayso uu farxay wuxuu ogaaday in ducadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay uu aqbalay haddana masaajidka ku soo laabtay soo ooynay oo hinta hore ku duwantay asoo faraxsan markaas nabiga uu sheegay wuxuu dhahay hooyadee way islaamtay ilaahay ducada uu aqbalay nabiga uu la farxay sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra gurigiisa iyo waxa isku dhaganaa guriga hooyadiisa subax kasta markuu soo maro wuxuu yiri assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh rahimakallahu ya ummi kama rabbatni saghira
allah kuu naxariisto hooyaday sidaa ii barbaaris anigoo yar ayadana waxay dhihi jirtay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu allah kuu naxariisto sida aad baari igu noqotay adigoo weyn intaas waxay tusinaysaa xataa saxaabada xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam siday ugu weynaayeen nabiga maxamed xataa naftirkiisa marka uu imaano hooyadiis waxay dhimatay asoo yar oo 7 jir ah aabiisna maba arkin ba agoon ayuu ahaa nabiga uu la weyneed hooyadiis macnaa inuu hooyo way la weyneed mar asoo marka laabanayo ayuu xootay alabwa meesha Allah ay ku duugan tahay aad ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u ooyay macnaa inuu mar wuxuu ka ooyay inuusan gudanin xuquuqda hooyadiis oo Ilaahay waafajinin hadana ee shariicada islaamka ay ku dhiman marka nabigeena xataa macnaa inuu weynay hooyadiis waxa way qayb kamid ah shariicada macnaa wixii uu ogolaatay wax dadka inta kale yani waxa diintu way naga reebtay laakiin ayada marxalad ama darajo ama xaalad ay naga reebtay ma jirto waxa jiray qisadii oo Jureej markii hooyadiis u imaatay macna hooyadiis imaatay soo tukanayo oo ilaaha soo ka aamus asna xal sunno tukanayo waxa la rabay sunnada iyo waajib marka waajibka hore hooyada hadalkeeda waajib ahay inuu la hadlo ma dhicin maalin dambe abaartay xidhaad dumarku xun wajiyadooda Allah kula kulmay gabar ay jirtay oo magaalada caan ka ahayd nin raacil oo beer ilaaliyo oo xoolaha raacay u tagtay oo kasoo zinaystay uur yeelatay waxay dhahay Jureej ay dhal tolkii ogaadeen gabadhi wal garaacay waxay dhahay Jureej ay dhal Jureej loo imaado Soomaalida meeshii uu ku jiray ay ka burburiyeen kadib Jureej wuxuu dhahay yaa dhahay arintan saasay cunug ma dhashaali geeyo cunug yaa loo geeyo salaad tukaday caloosha ku joogay man huwa abuuku dhaabaya way wuxuu dhahay waxa waa abeer ninka raacil qanamka ama ariga raacma oo beerta ilaali macnaha meesha culayska wuxuu ka furmay in Jureej uu bariyahay waxayna ku imaatay habaarkii oo hooyis habaartay ay dhaad ilaaha kula kulmay macnaha wax yar oo xataa oo qalbiga iska dhahdo hooyada samadeeda waa la aqbalaa oo macna samadu u furantay oo ducadeeda iyo habaarkeeda markasta waa la aqbalaa markaas daraadeed waa ina ilaalina yani xuquuqda hooyada macna wax uu gudan karna ama koobi karna ma markan waxaan siinaynaa ka qaybgalayaasha waxa ugu horeysa Aamina Maxamed Cabdi Aamina soo dhow su'aasha aad wadin lahayd sharciga qanad Faaduma ayaan wadahay aad uma santaa maadaama ay soo dhaweysay su'aasha wadin lahaa macluumaad waxa waaye dhaqanka Soomaaliyeed sidee u dhorta xuquuqda hooyada su'aal muhiim waaye aad uma santahay dhaqanka marka fiirno horta curfiga ama kala jirka wuxuu kamid yahay masaadirta shariicada oo waxyaabaha wanaag loo tiiriya hooyo marka dhaheynana Soomaalida marka fiirno horta waxay ka joogtaa boos weyn ka joogtaa oo waxa ka garanaynaa bulshadeena inta waalidka caasi ku ah inta hooyada baari waxa badan inta baariga marka Soomaalida marka fiirno dhaqankeena soo jireenka ahay hooyada markas inkasta dhahayaan macnaha haween tala laga ma qaato haween laakiin hooyo markii hooyanimo la joogo markas waxa qofka loo janjeero oo la weyneeyo oo go'aanadeeda laga qaato oo waxa arkaysaa mararka qaar go'aanadaada aabaha marka kala tashatay ina macnaha ku radin karto dhigi karto aab sidaan miyo cunto laakiin hooyada in lagu ixtiraamo oo lagu weyneeyo go'aanka ama waxa ay soo jeedisa ama talada ay keento waxay tusinaysaa in Soomaalida marka dhaqanka hooyanimada ay ku weyneed ay ahayd dhaqan sare oo la ilaaliyo oo ilaa haddana soo jireen leh waxa arkaynaa in hooyada geeb darajada oo shariicada geysay waxa ugu weyn magac hooyada waa la weyneeyaa oo macnaha go'aanadeeda waa laga go'aanada nolosha reerka ama caruurta waa laga tala geliyaa oo waxaysan raali ka lagu ma qaato marka waxa qtankooda hooyada waa la weyneeyaa oo booskay mudan tahay ayaa laga geeyaa dhaqanaha talabaadna waxa macnaha waa laga duca qaataa caruurta waxay aaminsan wax kasta hadaysan hooyada raali ka ahayn in oo macnaha oo duca ku siin inay isku hirgaleen marka dhaqan ahaan waxaana la baray in hooyada laga duca qaato iyo waxay raali ka ahayn oo ayadu ku qanacsaneen in aan la sameeyo marka waxaan soo dhaweynaynaa Saalax Xasan Xuseen Saalax soo dhow su'aasha aad weydiin lahayd sharciga qanad Faaduma ayaan marka kood waa dhawahay magacayga waa Saalax Xasan Xuseen waxa ka tirsanahay ardayda dhigata jaamacadda Muqdisho qaasatan kulliyadda sharciga qaanuunka aad ugu faraxsanahay marka kood horta barnaamijkan inaan maanta ka soo qayb galo in badan waa dhageystay balse maanta waqtigiisa maxay su'aasha qaw waxay noqonaysaa sidee loo gaarsiin karaa bulshada iyo mas'uuliyiinta faa'iidada ee leedahay dhowrista xuquuqda hooyada aad ma santahay Saalax su'aashaada horta bulshada waxa lagu gaarsiin karaa
in wacyigelin loo sameeyo dadkeena ma wada aan dad oo macnaha diintooda bartay ama waxaa jiro ama aanan arkinba meelo lagu tixgelinayo ama lagu weyneynayo hooyooyinka oo kale marka tan koowaad xataa aan soo bulshada in waxay u qayb qaadan kartaa macnaha in la wacyigelin loo sameeyo saala in la tago meelaha kaamamka oo dadkaas la baro xuquuqda ee hooyada ku leedahay caruurteeda macnaha la tuso weynida iyo meesha ay hooyada ka joogto lambar 2 horta waxa isdhihi lahaa iyadana waxa lagu gaarsiin karaa in bulshada lagu wacyigeliyo gabayada iyo suugaanta oo looga hadlayo xuquuqda ay leedahay hooyada waxa arkeena gabayo ama suugaano muhiim u ah oo tilmaamaya dhammaan xuquuqda Soomaaliyeed dad inta badan wax dhageysta waaye marka in ayadana bulshada saas ugu gaarsiiyo in lagu wacyigeliyo gabayada iyo suugaanta xuquuqda ay leedahay hooyada iyo tan saddexaad ugu muhiimsan oo in horta caruurta lagu tarbiyeeyo baarinimada waalidka marka ilmaha waxa ugu horeeya oo la rabo si ay waalidka xuquuqdooda u gutaan ama hooyada xuquuqda waxa waaye in marka yariin horta lagu tarbiyeeyo xuquuqda ay leedahay hooyada waalidka gaar ahaan hooyada lagu tarbiyeeyo iyo in warbaahinta loo adeegsado muxaadarooyin looga hadlayo xaqa hooyada ay leedahay waa tahay markan waxaan soo dhaweynaynaa Maryan Maxamed Xirsi Maryan su'aasha aad weydiin lahayd sharciga qaran Faadumo ayaan dhawaa maadsantiin waxaad salaamayaa dhammaantiin meeshii wala sugan ustaadada waxa weydiin lahaa yaa laga doonayaa dhowridda xaqa hooyada bismillaahir rahmaanir rahiim yaa laga doonayaa dhowridda xaqa hooyada waxa laga doonayaa number 1 oo u horeeya deedna waa sheeyno ku cilnayna horta waalidka naftirkooda sababta kaalinta leeyihiin waxa waaye inay caruurta baraan xuquuqda waalidka ay leeyihiin macna number 1 ayaga laga rabaa inay baraan xaqa ay waalidka ku leeyihiin weynidooda iyo waxa ay ka rabaan inay baraan sidoo kale ay gutaan marka ugu horeyso waajibaadka ay caruurta leeyihiin number 1 ayaga laga rabaa inay dhowraan talabaad waxa waaye bulshada naftirkeeda waa laga rabaa oo ah inay dadkii barto xuquuqda hooyada iyo ku wacyigeliso macnaha ay gaarsiiso wanaaga ay leedahay baarinimada iyo waxa laga dhaxli karo hadii macnaha ay waalidka baarin noo noqdo hadii caasi lagu noqdo cuqubada laga dhaxli karo oo la baro macnaha waalidka caasinimadiisa inay tahay عقوبة أدوني آخره معنا آخر أنت لسه تجين بأدونك صوت دقدقة مركا بولشة نفتر كان ولا جربة دولد نفتر كان إني ولا جربة أيضا سوته وحلا جربة عرورت وعاس والدين تا إني دقن علين أسميس يعني لبر تربية إنسان هيسن أو عاسني ماذا كنا سيدا كلام حلا جربة إني كهرتك توحيابها كيني كدولد حلا جربة وحيابها كيني كر دقن حماذا يعاس والدين لماذا سيدا دراجة كلا إن دولد كهرتك توحيابها أرجنا عاس والد إن عاس لو نقدم هوايد إن عاس لو نقد كنا أي قيب كتاع وتهي مركن وحن سود ويني عبد الفتاح عبد آذن سود سؤال أد ودين لهيد شرعي قناة فاطمة يان بسم الله هذا ما سنت هاي مقعي وعبد الفتاح عبد آذن أمين دكتور جامعة مقدشو وحن كبرتها كلية الشريعة والقانون سبيشال أو ديبارتمنت لو هذا مفرح سنة إن كسوق بقلب برنامج كان سؤال شيء وحيته هاي maxaa dhici kara hadii la dhowri waayo xuquuqda hooyada waxa ognahay wax walba oo xuquuq ama waajibaad ah hadii la gudan waayo inay ka dhalanayaan wax kale inay ka ratimayaan hadii la gudan waayo xuquuqda hooyada leedahay number 1 waxa ka dhalan kara horta qoyska fasaad sababta hooyada waa cad hilib ah oo ku dhex jira qoyska hadii cadkaas uu fasahaadana qoyska dhan uu fasahaada number 1 horta waxa ka dhalan karta in qoyska fasaad qoyska haduu fasahaadana bulshada dhan way fasaadmaysaa marka oo waxa way wada gaara oo wada camima waxana asal u ah hooyadii oo aan baari loo noqonin oo macna xaqeeda la gudan waayo marka fasaadkaas ay ku imaanay bulshada qodobka koowaad tan labaad waxa way waxa ka dhalanaysa caasinimo in caruurta ay caasi noqdaan ay gudan waayaan macna xuquuqda hadaa gudan waysid hooyada macnaheedu waxa caasiya tahay waa marka caasinimo ka dhalanayso macna xaqeeda oo gudan waysa mid baari kuma noqonaysa marka caasinimo ka dhalanaysa saddexaad waxa cuqubo la iska dhaxlo oo socoto oo laga yaabo in waqtiga dambe aad saameyn kugu yeelato inay ka dhalato waxa cuqubooyinka waxa kamid ah soo aragnay jureej macna hore u sheegna amal sida hooyadiis yani hadalka ay darteed inay ku dhacdo waxa arkaynaa kala qisooyin dhacay oo dad waalidiintooda meel oo xun ku dambeeyeen oo ayagana sidoo kale la noqday oo meel cidla looga tagay waxa jirtay gabar oo dhakhtarad ahayd qiso aqnay Sacuudiyaaneed ayaa maalin waxa soo galay gabar cunug yar jiidaysa cunug yar xambaarsan qof waayeel ahna jiidaysa gabar dhakhtaradeed waxay dhahday qofkan waayeelka u dhimri sidaan ku sameeyeen waxay dhahday
qofkan waa hooyaday waxay qabtaa cudurka sokorta waxaa rabaa inaad ka baartid waxaan macnaa rajeynaa inaad ka heshid si ay u dhimato aan nolosheeda uga raaxaysano gabadha dhakhtaradda waxay u fikirtay macnaa gabadha hooyada saas yeelaysa ismay dhin laakiin waxay u fikirtay ninka qabooyis in waxay dhahday dhakhtaradii ninka maamadan waa hooyada oo kale xaqa adi hooyada kugu leedahay ay ninkaada ku leedahay markaas waxay dhahday ninkay hooyo ma ahan ani hooyaday waaye waxaa rabaa inaa ii tilmaamtay meesha dadka cajuusiinta la geeyo meeshaasaa ku haynaa maxaa yeelay waxay dhib iyo caqabad ku tahay horumarka aniga iyo ninkeyga gabadhi way u cuntami weysay waxay dhahday anaa guri weyn degan ani isii maamadaada gabadhi way siisay taariikhda waxay xustay in ayadani cunugii maalintaas xambaarsaneed oo saas kale meel oo uga taray marka cuqubo ayaa ka dhalanaysa oo ah meesha waalidkaada geys maanta ayaa lagu geynaa kamaa tudiin tudaan tan afraad oo ah habaara ka dhalan kara ayadana macnaha in xaq hooyada hadaa gudan weysid hooyada macnaheeda marka habaarka iyo ducada horta ma aha wax lagu dhawaaqo oo hooy iyo ducee waa ku ducee laakiin ducada iyo habaarka wax la daxada waaye Soomaalida si dhahday macnaa ficil hooyada u sameysay ay ku duceyn kartaa si qalbi ah hadal kaga oysiisay ay si niyada ka xuntahay darteed habaar kugu dhici kara macnaheeda kaliya habaarka maan inay ku raad ilaaha saan samee ilaaha kan ku samee laakiin waxa waaye wax yar ay dhibsato oo habaar adig kugu noqdo marka waxa ka dhalan karo intaas oo dhibaato ama caqabada ka dhalan karta hadii la gudan waayo xaq hooyada maxaad kula talin lahayd caruurta si loo ilaaliyo xuquuqda hooyooyinka su'aal muhiim ah waaye waxa kula talin lahayd caruurta macnaa caruur markii waalid la joogo caruur waxa ah qof kasta oo waalidkiisa u nool yahay macnaa da'du raba la ekaado ugu dambeyn qof la dhalo waaye number 1 waxa kula talin horta in baari loo noqdo hooyada baarinimadan waxay kulmisanaysaa wax kasta oo ihsaan ah hooyada loo sameeyna oo u baahan tahay oo xuquuqdeeda in aan laga hor imaan ayadan ka hor imaanshaheeda waxa ka dhalan kara habaara ka dhalan kara marka in aan laga hor imaanin oo aan la isku taagin oo la isku dayo in waxa ay rabto ayada macnaha oo lagu canaano oo hadal xun la dhihin marka waa in laga hor imaan waxa hooyada rabto iyo in laga caawiyo wax walba oo nolosheeda daryeelkeeda caafimaadkeeda rabitaankeeda farxadeeda ka warqabkeeda la saaxiibisteeda talagelintaada nolosheeda oo dhan maadaama ayada sababtaada ay tahay marka waxa ku soo duubayna ayada dhan macna ina ihsaan loo sameeyo ihsaan oo wanaag oo dhan in loo sameeyo dib oo dhan laga ilaaliyo guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii tusmada sharciga oo aan ku eegnay ilaalinta xuquuqda hooyada ee shariicada islaamka waxaan nagala qayb galay asxaabta kale ah Cabdi Fataax Cabdi Aadan Saalax Xasan Xuseen Maryan Maxamed Xirsi iyo Aamino Maxamed Cabdi waxa marti inoogu ahayd sharci yaqaanad Faadumo Ayaan Axmed Cabdullaahi intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan kaga tageynaa sidaas iyo amaan Allah magurxamo libaaxi dadku gacashanaya karbodkay cayaaraan shabeelkii wax